مريم warbixinta aan hayno waxay sheegaysaa ninka iyo tiyo in ay la shaqeeyaan Dragos sidoo kale kama marna ninka la yiraahdo Tara isna waa uu la shaqeeyaa cagta ina u saarta ayaan ka rabaa hana ka harin sida hoosta oo kale waa inaad la socotaa mudane Arthur hadalkiisa sax ayuu ahaa hadda kullee wax ay doonayaan inay sameeyaan adigu waxaad tahay qofka sida saa'idka walaashay ugu kalsoontaa sidoo kale waxaan rabaa inaad ii sheegto sababta guurka Imir Baadin ay u diidantaa maxay tahay aniga ma aqaana baay ibligeedna wax qalbigeeda ku jira lama ogaan karo waxaan baray qalbigeed waxa ku jira inaan ogaado qofay kala hadasho ma jiraa maya waxba ilama hadlin cidii arrintiisa igu soo qaadana ma jirto horta qofka inuu guursado way wanaagsan tahay anigana arrinta kooya markii aan ku soo hadal qaado walaashay xamaasad gooni ayaan ka dareemay ma soo gali karaa soo gal hay soo hadal akhbaar xun ayaan ku sidaasid ma akhbaartu xun maxay tahay qoladii canshuurta wadada ayaa loo galay ibligeedna waa la afduubtay yaa tahay cidda awooddaas yeelatay qof kale macna waa Dragos walaalkay balbad walaalkaagan waxa qabtay Erturbek isna waa uu xiray markuu isku day inuu ninkaasi weeraro Erturbekna wuxuu yiri meeshan waa inaad ku jirto haddii ka nafsadaad khatar ay galaysaa taas sidee ku suurta gashay yaasa si awooddu ciidankayga ku hor istaagaa ma dhici karta ayaan ku dhah waxaan kaga baahanahay ciidanka dhammaantood inay diyaarisid wada hadal waa inaan sameynaa waxaad ogaataa Saara iyo milkiisa si qarsooda inay ku kulmaan walaal aniga amar igu sii dadkaas waxaan ku hayaa qudhooda meel in lagu sheegay bamsi wax dhaqdhaqaaqa sameeyay ilaa xogta dhabta aan gacanta kaga dhigno raggan waa sidii ceel aad u dheer ilaa salkiisa aan ka ogaanaan dhaqdhaqaaq ma samayn karno ugu horreyn ceelkaas waa inaan dhagax ku dhex ridnaa kadib ayaan ogaan karnaa ceelkaas dhererkiisu intuu yahay mudane qabiilkeena ayaa fariinkaaga sida mudane Artug waa la soo weeraray nimankii la socdeen ayagoo dhaawac ayaa la keenay Artug hadda xaaladiisa iga war mudane Artug waa la weysan yahay waa sababta xara oo dhan ugu yimaan waaye waxaan ku weydiinayaa wax ciidama miyaa ku baxay oo raadiyey maya mudane laakiin Gundus iyo Salmaan markay ay maqleen waa israaceen baadgoobkiisa ayay u baxeen yuu yahay qofka afduftay mudane Artug bamsi soo ma ogid Artug inuu yahay ninka sirtan oo dhan gacanta ku haya waxay rabaan sirtaas si ay u ogaadaan waan ku kalsoonahay mudane Artug inuusan wax sira bixinaynin laakiin waxaa waajib nagu ah ninkaas inaan raadino cadowga gacanta ku dhigana inta u tagna aan qoorta ka soo jarno bamse turgood wala maryaan sulaymaan iyo Gundus ayaad ka daba tegaysaan turgood waxaan kaa rabaa in aadan dib iigu soo noqonin adigoo aan Artug bay wadin waana aniga amarkayga socda maxaa la taagantahay xidsa buuraa dhexdooda anigaa ka raadinaya waad aragtaa waa dabwaana xanuun adeer marka hore indhihii aad tiri sanduuqa kumaan arkin ayaan kaa siibayaa kadibna dhegihii aad tiri waxba kuma aana maqal waa kaa jaraa waxa ugu dambeeya waa carabkii aad runta ku sheegi weysay sanduuqa xidhnahaas inta aada weyn waxaa ku wanaagsan runtii inaad iska sheegto oo naftaada aad u danayso carab iyo indho iyo dhago